magaalada Ceerigaabo waxaa ka soconaya shirar gooni ah xilli halkaasi uu ku sugan yahay madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciro. Goordhoweed halkaasi waxaa ku soo gabagaboobay shir xasaasi ah oo u dhaxeeyay beesha Warsangeli sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciro. waxyaabihii looga hadlay shirkaasi cid soo qaban qaabisay iyo war-saxaafadeedkii ka soo baxay ayaa halkan idinku soo gudbin doona ee daawasho wacan. haddii ay tahay markii ugu horeysay ku soo gaaray muuqaalkeena subscribe inoo dhig gambaleelka furasay ku soo gaaray muuqaalada kale xiga. haddii aad subscribe inoo tahayna muuqaalka like inoo saar noo share garay soo gaar asxaab badan. waxaan si guud galeynaa muuqaalkeena waa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo dhawaanahanba ku sugnaa magaalada Ceerigaabo wuxuuna halkaasi uu kaga qayb galay shirar gooni ah oo la yeelanayo waxgaradka deegaanka halkaasi. goordhoweedna waxaa soo dhamaaday shir xasaasi ah oo madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciro halkaasi uu kula yeeshay waxgaradka beesha Warsangeli. kulankaasi waxa uu ahaa mid si aad ah loo soo qaban qaabiyay isla markaana dadkii shirka ka soo qayb galay iyo madaxweynaha Soomaaliland ba si aad ah ay u daneynayeen shirkaasi iyadoona inta badan diiradda lagu saarayay arrimaha la xiriira amniga wada shaqeynta nabadeynta iyo sidoo kale sidii Soomaaliland ay horay ugu sii socon lahayd. shirka intuu socday waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ka qayb gashay shirkaasi iyagoona si aad ah u soo dhaweeyay kulanka ay la qaateen madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciro waxayna kaga mahadceliyeen sidoo u soo qaban gaabay kulankaasi iyagoona sheegay in safarkiisa uu ku tagay magaalada Ceerigaabo ay ahayd mid aad muhiim ah. hal mar aan isla daawano qaar ka mid ah madaxdii ka qayb gashay shirkaasi iyadoo ugu dambeyn halkaasi uu ka hadli doono madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi hadallo fara badan halkaasi uu ka jeedin doono. madaxweyne wadanka cirif ilaa cirif mas'uuliyadda Ilaahay subhanahu wa ta'ala adiga ayuu kugu og yahay ummadda min aqsa ila aqsa cadaalad baa deeqda. halkay wax ka bilowdeen waa isla ogeyn dhibaatadii dhacday iyo mushkiladii dhacday ee wadanka ka dhacday ee barnaamijkan ka dhacday waxay noqotay tarka ina kala irdhaysay bay noqotay inaga iyo maamulka iyo dalkii aynu ku wada nooleyn oo walaalaha ku ahayn colaadayna kala irdhaysay waa ina kala kaxaysay waxayna ku kala irdhaysay waa dhibaato dhacday weeyaan. dhibaatada dhacday markii ay dhacday madaxweynaha waxaan uga mahadcelinaynaa madaxweynuhu inaanu xabad kaga jawaabin oo qori kaga jawaabin ee uu kaga jawaabay gogol nabadeed wixii Warsangeli uu qabay wixii uu oran lahaa waxa qaba inaanay inta uu cali yiri aanay qorayn baa qaba intii bil raga joogay iyo laba joogay inta uu yiri inaanay qaba qorayn baan aaminsanahay. laakiin waxay noogu dhan tahayba oo xagga dawladda nooga dhan tahay had intaasaaba badhaga soo haraya haddii uu madaxweynuhu noo qaado baaba naga soo haraya haddii uu madaxweynuhu noo qaado waana noo qaadaya. mudane madaxweyne inta hadda ay joogtana waa gabagabo waxyaabaha dambe oo ku soo korkordhay intii aan soconay ha socotay waxa ka mid ah shidan insha Allah iyadana waxaan u maleynayaa inay soo ururi doonto iyaduna insha Allah biidnillaahi kariim. maanta aynu caawino halkan si nabada u wada joogno isoo hor fadhino nabadu waa qaaliya weeye. inta kadib nabadu intii la qabtay oo kaliya maaha waxa weeyaan hawlka madaala wali waa hogadii weeye. hawlo badan baa harsan dhinaca xukuumadda iyo dhinaceennaba haddaynu nahay beesha halkan fadhida caawa. berigii u horeysay suldaanka intaan laga isagoo watay buu Hargeysa yimi waa la wada hadlay barnaamijkii siyaasadda la isla qaatay ciidamadii baanu keenay hubkii baanu keenay wixii dawladda ku wareejin annaga mas'uuliyadna saaran ma aha inaanu doorashadii gaarsiino halka dawladda mas'uuliyadeedii baa ahayd taayna lagu qadiyo horta madaxweyne ma rabno Warsangeli waa ka wixii shaqaana looga baahan yahay waa qabanayna laakiin yaan dibna loogu qadin. intaasna madaxweyne ka codsanaynaa waxaan ka codsanaynaa oo kale anigu shakhsi ahaantaydu in gobolka maamulka aynu joogno nabadda laga xasiliyo. nabaddu waa wax qaali ah. reerka halkan caawan ku joogno ama beesha halka fadhida ee Warsangeli iyo bahwadaagteeda runtii waa
waa reer Somaliland iyadoon maaragtay hakag lahayn bay reer Somaliland leeyahay annagu berigii aanu halka nimi ee aanu halka u fadhinay bil iyo dheeraad ee tan ka horeysay ee ilaa kulaal aanu soconnay ee aanu u ordaynay nabadda ee madaxweynuhu markaa aanu haysan oo ahaa gudoomiye xisbi oo uu lahaa nabadda ka shaqeeya meel kasta uu imanayay inuu lahaa nabad aad buu ugu mahadsan yahay aad baan u salaamayaa dhammaantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi barakaatu madaxweyne waxay la tahay maanta waa maalin weyn shirkii guddiga nabadda oo labada dhinac ahaa oo guddigii aad adigu xukuumadda ka soo magacowday iyo guddigii suldaanka guud soo magacaabay meel fiican bay wax keeneen intii dambena annagu waanu la haynay oo waanu kala shaqaynaynay haddaan mas-uuliyiinta deegaan ka soo jeeda ahayn runtii halkan aan ugu imi iyagoo anigoo ka imi muxuu ahaayey gobolka soo maray oo ilaa iyo dhahar iyo xingalool iyo armale iyo dhul badan soo maray aad baan uga mahadnaqayaa hortaada wax badan bay qabteen wayna dhabar adeegeen madaxweyne ragga halkan fadhiya waa raggii hawsha faraha badan iyo xaaladaha faraha badan iyo waqtiga faraha badan geliyey nabaddii adigu aad ku baaqday iyo markii ceergaabo laga qaxay runtii beeshan warsangeli haddii aan la kulmay waxa ii muuqatay wax runtii aad ii raalli geliyey oo ah inay nabaddu ka go'an tahay ma labaad mudane madaxweyne aad baan kaaga mahad celinaynaa dardargelinta nabadeed ee aad adigii laftirkaagii hoos u sii gashay adigoo horena u waday wafdi qiimo badanna hore u soo diray adiga iyo suldaankaba runtii waan idinka mahad celinaynaa waxaa loo baahan yahay in taladigii gobolka waaba imika kusoo dhadhawaatee uu noqdo gobol ay dowladdu raad weyn ku leedahay oo go-aankeedu ka socdo oo go-aankeedu hirgalo waxaa la rabaa markaa gobolkan inuu noqdo gobol dowladdu ay gacanta ku hayso oo dowladdu meel walba gaadho meeshii dowladdu joogtana dadku ku soo hirtaa magaaladan waxaa looga qaxay ee dadku uga tegey maamulkii dowladdu dumay sidii horeba loo sheegay madaxweyne waa kuu mahad celinaynaa waxaanu kaaga mahad celinaynaa gogoshan aad dhigtay waxaanu kaaga mahad celinaynaa oo kugu dhiiri gelinaynaa dhagta iyo dhugmada aad u leedahay nabadda oo aad muddaxileedkaagii koowaadba ku ballaysintay nabadda iyadoo aan weliba dhegaystay waraysi aad ku sheegtay inta cimrigaaga kuu hadhay inaad ka shaqayn doonto nabadda waxay u baahan tahay waxyaabaha yaalla laba hawlood wixii amniga dowladnimadaa ku filan laakiin sii wadidda qodax saarkii wixii meeshan yaallay oon dhammaystirnayn wuxuu u baahan yahay in loo dhiibo dhaqan iyo dad lagaga tashado oo hawshii la wareego sii ambaqaada ugu dambeyn madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa u mahad celiyay suldaanka guud iyo madax dhaqameedka kale kaalintooda taariikhiga ee ku leeyihiin ilaalinta nabadda iyo wadajirka bulshada gobolka Sanaag isagoo carabka ku adkeeyay in nabadda iyo wadajirka ummadda Soomaaliland ay yihiin hantida ugu qaalisan ee bulshadu wada leedahay madaxweynuhu waxa uu sidoo kale xusay in xukuumaddiisu ay si dhab ah u qadarinayso doorka ay beesha warsangeli ku leedahay dhismaha qaranka isla markaasna ay muhiimad gaar ah in talada iyo masiirka ummadda lagu dhiso wada tashi cadaalad iyo kalsooni suldaanka guud suldaan Siciid dhammaan salaadiinta madaxda kale dhaqanka haldoorka iyo ningarboodka caawa halkan isugu yimi waxaan idinka mahadnaqayaa inaad safar dheer u soo gasheen inaynu caawa halkan isugu nimaado xukuumadda aan anigu odayga u ahay laba wax baa ka go-an ta koowaad waa in dalka la nabadeeyo ta labaadna waa in la walaaleeyo oo la mideeyo
toban bilood bay xukuumaddaydu jirtay ilaa bishii koowaad nabadeynta sidaan maantaba sheegay gobolka Sanaag waa ku jiray waxyaabo hore way noo dhamaadeen oo Ilaahay baa mahad leh inoo fududeeyay may hawl yaray mid waxay qaramayntii oo dad hubaysan oo aan discipline-kii ciidanka lahayn oo qoriyeysta in la qarameeyo may hawl yaray madana waxay colaadii ka jirtay cilaf weyn argaabo waxa la kowsaday iyadoo dhibaatadeeda ammaanku ay bilaabantay ninkii ugu horreeyay lagu dilay magaalada Dhulbahante markii la dilay Nairobi baa joogayo Nalay Axmed Suldaan Saciid waxaan kala hadlay Addis Ababa waxaan ku yidhi Suldaan waxaynu u baahan nahay inaynu dadkii nabadoodii markaanu mucaarid baan ahay oo dowladda maan ahay intii ay joogayna waxaan ku dadaalayuu in nabadda la sugo iguma isimin 12 bishii la dhaariyay 14kiina maalin kadib dagaal ba ka dhacay Sanaag hase yeeshee mar walba waxaan lahaa ciidamada intii hadii xukumayna cid wax weerari kartaa ma jirto Suldaan Saciid ilaa maalintaan kala hadlay Nairobi iyo doorashada ka horeysay waxaan uga mahadnaqayaa inuu si buuxda aan uga wada soconay anoon madaxweyne ahaynba aan nabadda ka wada shaqeyno anu nabaddu meesha tagto waan ugu tagayaa oo dadkayga ma maamuli karo horumar uma keeni karo haddii aanay nabad haysan khasaaraha ugu yari waxa weeye qofku dee markuu gurigiisa ka qaxo adeegyadii asaasiga ahaa way baabaayaan hadday waxbarasho tahay hadday caafimaad tahay waxaan idin ballan qaadaynaa horta inaynu nabadda ka wada shaqeyno kadibna xukuumadda waajibkeedu uu yahay in amniga iyo nabadda la sugo qofka muwaadinkii waa inuu nabad ku seexda oo nabad ku soo toosa oo nabad wadada ku mara haddaynu ka wada shaqeyno umaynu suurto gelaysa xukuumaddu keligeed kama shaqeyn karto waxay u baahan tahay dadkeedu inay kala shaqeeyaan qaramayntu may suurto gasheen haddaan wadaadka caaqilka ganacsatada xildhibaanka siyaasiga haddaan laga wada shaqeyn ma suurto gasheen wax kasta oo la isku dayana oo wanaagana cid ma ka soo horjeesanaysa waa iska sunnaha bani aadamka iyo nolosha ka mid tahay laakiin inta badan waxa isku raacdo ayaa mar walba shaqeynaya waxaan idin ballan qaadaynaa inay naga go-an tahay inaynu nabadana hagaajino xuquuqaha aad leedihiin waxaa laga yaabaa inaanaan maalin wada fulin karin wax idinka maqan ama maamul ha noqdaan ama ciidan ha noqdaan ama shaqaale dowladeed ha noqdaan laakiin xukuumaddu waxay ku dadaalaysaa maalin walba waxaad ka cabanaysaan iyadoo lasoo kala horeysiinayo inay dhammaantood insha allah wax ka qabato haddii la yidhahdo dowladda waxaa xaq u leedihiin insha allahu waana ka wada hadli doonaa si gaara kulleyba halkan dacaawa ku dhammaan maayo arrinku guddiyaduna saa la sheegay kala tegi maayaan waxaynu u bedeli doonaa waxaynu ka wada hadalnay in la qoro oo kolba wixii la fuliyeyna markaa la saxo haddii aan la yidhahdo waxaan umahadnaqayaa Suldaan Saciid iyo dhammaan intiinan ergooyinka iyo intii guddiga farsamada ka soo horeysay insha allah maanta halkaa kaga jirteen Somaliland baan rabnaa inaad soo gasho
haddii aad dhamaysatay muuqaalka aragtidaada inoogu reeb qaybta faalada waxa kaaga soo baxay haddii ay markii ugu horeysay uu ku soo gaaray muuqaalkeena subscribe dhig gambaleelka furasi uu ku soo gaaray muuqaalada kale xiga haddii aad subscribe inoo tahayna muuqaalka inoo share garay like inoo saar si uu gaaro asxaab badan